kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa janalka Olbanaadir waxaan daawadayaal halkaan idinkugu soo gudbinaynaa oo aad daawan doontaan warbixin si gaar ah uga hadlayno ciidamo ka tirsan maamulka Jubbaland oo u goostay al-shabaab iyadoo ay socdeen howlgalla ay ku dhawaaqeen madaxda ugu sarreysa maamulka Jubbaland kuwaas oo al-shabaab looga saaray deegaanada maamulka Jubbaland oo ay kaga sugan yihiin howlgalladaas ayaana saraakiishu waxay sheegeen inay meel wanaagsan marayaan deegaano horlena ay gacanta ku dhigeen ciidamada ammaanka ee maamulka Jubbaland howlgalladaas ayaana waxay ahaayeen kuwa ujeedka looga gol leeyahay uu ahaa in gabi ahaanba deegaanada maamulka Jubbaland ay gacanta ku dhigaan ciidamada kala duwan ee maamulkaas howlgalka waxaa si wadajir u sameynayay ciidamada daraawiishta maamulka Jubbaland boolis iyo military intuba ay ku sugnaayeen howlgalka waxaa si wadajir u fulinayay ciidamada kala duwan ee maamulka Jubbaland sida daraawiishta nabad sugidda iyo militariga kuwaas oo gabi ahaanba ka sinaa howlgalka lagula dagaalamay al-shabaab horey waxa uu jirtay howlgallo badan oo ku dhawaaqay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe kuwaas oo dhamaantoodba la sheegay in la fuliyo balse hadafkii laga lahaa aanan la gaarin intii ay socdeen howlgallada ciidanka maamulka Jubbaland ay wadaan sanadadii la soo dhaafay iyo saraakiisha ammaanka ee ciidamadaas waxay sheegeen in howlgalladaas deegaano dhowr ah ay gacantooda ku soo galeen inkastoo howlgallada sida ay ugu dhawaaqeen madaxda Jubbaland iyo deegaanada gacantooda soo galay ay ahaayeen kuwa aan isu dhigmin deegaano aan badnayn ayayna ciidanka maamulka Jubbaland soo bandhigeen markii howlgalladaas ay soo idlaadeen bilihii ugu dambeeyay waxaa socday ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Jubbaland oo duleedka magaalada Kismaayo dhaqdhaqaaqyo ka waday weerar dhowr ah oo ay la kulmeen ciidanka maamulka Jubbaland tan iyo markii howlgalladaas ay bilaabeen weeraradaas ayaana waxay ahaayeen kuwa ay sheegeen inay iska difaaceen iyadoo taas ay jirto ayaa haddana ciidanka maamulka Jubbaland waxay soo bandhigi jireen rag ka tirsan al-shabaab sida ay sheegeen oo ku soo biiray ciidamadooda bil kasta ayaa ciidanku waxay soo bandhigi jireen tiro rag ah kuwaas oo ay sheegayaan iyaga oo hubkooda watay inay u soo goosteen dhinaca maamulka Jubbaland dad badan ayaa tallaabadaas waxay u arkayeen ciidanka maamulka Jubbaland ay ku soo bandhigayaan ragga ka tirsanaa al-shabaab mid waa guul balse muddooyinkii dambe ayaa waxaa soo baxayay arrintaas mid ka duwan xilli aan sidaas u dheereen ayaa ciidanka maamulka Jubbaland waxaa ka goostay tiro ciidamo ah kuwaas oo gaarayay 16 askari muddo bil ah kadibna waxaa u suurta gashay inay soo gaaraan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka iyagoo codsaday inay ka mid noqdaan ciidanka militariga dowladda Soomaaliya mar uu hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waxa uu sheegay in raggaas ay ka tirsanaayeen al-shabaab ayna u goosteen dhankooda balse aysan jirin rag ka tirsanaa maamulka Jubbaland oo ku biiray dowladda dhexe hadalkaas waxa uu ahaa mid siyaabo kala duwan ay u hadalhayeen bulshada deegaanada maamulka Jubbaland in ciidamo ka tirsanaa maamulka Jubbaland ay ku biiraan al-shabaab iyaga oo ka soo baxay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose dad badan ayaa isweydiinayay sida ay ku dhacday in tiro ciidamo ah oo ku dhow 20 askari inay ka soo baxaan magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland iyagoo soo maray deegaano dhowr ah oo ay ku sugnaayeen al-shabaab inkastoo ugu dambeyn ay shaaciyeen inay soo gaareen magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxayna ka dhawaajiyeen in ay la kulmeen dagaallo culus intii ay ku soo safrayeen wadada xiriiraysa Baraawe iyo Kismaayo inkastoo hadalkaas dad badan ay sheegeen in uu yahay mid aan la aaminin karin waxayna taasi keentay in ciidamadaas oo jooga magaalada Muqdisho in ay la hadlaan warbaahinta Muqdisho iyagoo dowladda ka codsanayay in ay ku darto ciidanka militariga si ay qayb kaga noqdaan howlgallada ka socdo gobolada dalka 13 bishan taliska hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxay soo bandhigeen 2 xubnood oo la sheegay inay ka tirsanaayeen al-shabaab kana howlgalayeen gobolka Gado saraakiil ka tirsan ciidanka nabad sugidda Jubbaland ayaa waxay sheegeen in raggan oo lagu soo bandhigay degmada Balad Xaawe ee gobolka Gado ay yihiin 2 nin oo muddo sanadaha ka tirsanaa al-shabaab sida ay sheegeen saraakiishu waxay sheegeen inay la soo xiriireen qaar ka mid ah ciidamadooda sidaasina ay ku soo dhaweeyeen isla markaana ay sheegeen in lagu wareejin doono hay'adaha kale ee dowladda federaalka Soomaaliya tani waxa ka sii horeeyay in ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka dowlad goboleedka Jubbaland ay hore u soo bandhigeen xubno saraakiil ah oo ka tirsanaa al-shabaab kuwaas oo ay sheegeen inay ku soo biireen ciidamada maamulka Jubbaland qaarkoodna ay soo bandhigeen iyagoo hubkooda iyo dareyskooda wata kadib marka ciidamada maamulka Jubbaland ay soo bandhigeen 2 nin oo ay sheegeen inay ku biireen maamulkooda kadib markii ay ka soo goosteen al-shabaab ayaa waxaa soo baxay warar sheegaya in 7 ka mid ah
askarta ilaalada u ahayd madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ay ku biireen dhinaca al-shabaab taas oo hadalhayn weyn ka dhalisay deegaanada maamulka Jubbaland iyo sida ay ku dhacday ilaa iyo 7 askari oo ka tirsanaa ilaalada madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe ayaa la sheegay inay ku biireen al-shabaab askartan ayaa la sheegay inay ka baxeen magaalada Kismaayo iyagoo ciidamo ka tirsan daraawiishta Jubbaland dagaal kula galay duleedka magaalada Kismaayo kuwaas oo la sheegay in lagu amray inay qabtaan askarta baxsadka ka ahayd maamulka Jubbaland inkastoo arrintaas aysan u suurtagelin ciidamada daraawiishta wararka soo baxay ayaa waxay sheegayeen in dagaalkaas ay sheegeen in ciidankii ka tirsanaa daraawiishta Jubbaland 3 askari looga dhaawacay kuwaas oo lagu dabiibayo isbitaal ku yaala magaalada Kismaayo warar soo baxay ayaa waxay sheegeen in 7 askari ee ka goosatay maamulka Jubbaland lagu soo dhaweeyay deegaanka lagu magacaabo Janaay Cabdalle oo qiyaastii 60 kiiloomitir galbeedka ka xiga magaalada Kismaayo halkaas oo ay maamulaan al-shabaab maamulka Jubbaland madaxdooda iyo saraakiishooda ciidanka wali kama aysan hadlin 7 ka mid ahayd ilaalada gaarka ah ee madaxweynaha Jubbaland ee ka baxsaday maamulkaas kuna biiray dhinaca al-shabaab arrintan ayaa waxay noqotay mid ugu hadalhaynta badan deegaanada maamulka Jubbaland gaar ahaan magaalada Kismaayo waxayna ku soo aaday xilli maalmihii dambe ciidamada Jubbaland ay gobolka Jubbada Hoose ka wadeen dhaqdhaqaaqyo ciidan kuwaas oo ay sheegeen in lagu baacsanayo al-shabaab tiro dhowr jeer ah waxay ciidanka maamulka Jubbaland soo bandhigeen rag ka tirsanaa al-shabaab sida ay sheegeen kuna biiray ciidanka maamulka Jubbaland balse tan ayaa waxay noqonaysaa mid dhammaan ka duwan wixii horey u dhici jiray maadaama ciidanka baxsaday ay ahaayeen ilaalada gaarka ah ee madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe isweydiinta saala ayaa waxay tahay 7 askari oo ka mid ah ilaalada gaarka ah ee Axmed Madoobe sida ay ugu suurta gashay inay ku biiraan dhinaca al-shabaab waxaana dad badan ay la yaabeen qaabka ay uga soo baxsadeen magaalada Kismaayo oo ah magaalo ay ku sugan yihiin ciidamada ugu badan ee maamulka Jubbaland howlgallada ciidanka maamulka Jubbaland ay ka wadaan qaybaha gobolkaas ay ka haystaan maamulka Jubbaland ayaa waxa la isweydiinayaa saameyn ma ku yeelan doontaa 7 askari ee ka baxsatay dadka qaar ayaa sheegay in howlgalkaas uu yahay mid aan diyaarsanayn iyadoo howlgal socdo markay baxsadeen ciidamo ka mid ah maamulka Jubbaland waxayna maamulka Jubbaland u soo jeediyeen intii howlgal ay ku mashquuli lahaayeen in ay ku mashquulaan amniga magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland iyo in laga warhayo ciidamada maamulka Jubbaland dhaqdhaqaaqyada ay ka sameynayaan gudaha magaalada Kismaayo si loo ogaado ciidamada baxsadka ka ah maamulka Jubbaland lama oga talaabada ay qaadi doonaan saraakiisha ciidanka maamulka Jubbaland iyo madaxdooda iyadoo tani ay noqonayso markii labaad oo ciidamo ka tirsan Jubbaland ay ka baxsadaan magaalada Kismaayo hawsha u taala maamulka Jubbaland ayaa waxa ay tahay ka warqabka ciidamada maamulkaas maadaama ay dhacday in ciidamo ka tirsan maamulka Jubbaland ay dhowr goor ka baxsadeen magaalada Kismaayo iyaga oo ku sii jeeda deegaano ay maamulaan al-shabaab ciidamada maamulka Jubbaland ee ku sugan duleedka magaalada Kismaayo ayaa waxaa lagu tilmaamay in ay ahaayeen kuwa aanan feejignayn maadaama ciidankaas lagu soo wargeliyay in ay jiraan ciidamo baxsad ah oo ka baxsaday magaalada Kismaayo kuwaas oo doonaya in ay maraan duleedka magaalada Kismaayo waxaana ciidamada daraawiishta maamulka Jubbaland markaasi kadib ay isku diyaariyeen in ciidankaas gacanta ay ku dhigaan inkastoo aysan taasi dhicin ciidamadaasna si nabadgelyo ay kaga baxaan deegaanada maamulka Jubbaland inkastoo dagaal kooban uu halkaas ka dhacay wax dhibaataan ay ka soo gaarin 7 askari ee baxsadka ahaa qof walba oo ka tirsan shacabka deegaanada maamulka Jubbaland ayaa wuxuu isweydiinayaa sababta ku kaliftay ciidamo ka tirsan maamulka Jubbaland oo gaaraya 7 askari iyagoo waliba ah ciidamo si gaar ah uga tirsanaa ilaalada madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland inay ku biiraan dhinaca al-shabaab qaarkood waxa ay tilmaameen in ciidamadaas ay tabanayaan in aysan helin xuquuqaadka ay ku lahaayeen dowlad goboleedka Jubbaland halka kuwa kale ay sheegayaan in ciidamadaas ay hore uga tirsanaayeen al-shabaab balse maamulka Jubbaland ayaa markii ay hadlaan madaxdooda iyo saraakiishooda wax walba kala cadeyn doona waxyaabihii kalifay ciidankaas in ay maalin cad ka baxsadaan magaalada Kismaayo maamulka Jubbaland howlgallo dhowr ah waa ay sameeyeen intii maamulkaas uu jiray ciidamo badan ayaana maamulkaas ka jooga magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka kumeel gaarka ah inkastoo ciidamadaas lagu tilmaamo in xilliyada qaar ay yihiin kuwa aanan feejignayn tusaale ahaan markii halkaas ay ka dhacaan weerarada u badan qaraxyada iyo dilalka gaadmada ah ayaa ciidankaas mas'uuliyad xumada dusha looga saaraa amni iyo in ciidamadaas saraakiishooda lagu canaanto inay isbeddel ka sameeyaan magaalada Kismaayo waana mid kale oo iyana caqabad ku ah ciidamada maamulka Jubbaland haddii ay ahaan lahaayeen daraawiishta nabad sugidda iyo militariga maamulka Jubbaland ee ku sugan
bartamaha magaalada Kismaayo. Daawadayaal, intaas ayay ku dhantahay warbixintii sida gaarka aan kaga hadlaynay 7 askari oo ka tirsan ciidanka maamulka Jubbaland oo ka baxsaday magaalada Kismaayo, kuwaas oo ku biiray dhinaca Al-Shabaab. waad ku maasantiin la socodka iyo daawashada warbixintan iyo guud ahaanba warbixinada ka baxa janalkeena All Banaadir.